بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قرآنka waxaa ku jira aayado في سورة الليل oo haddii macnaheeda la fahmo tafsiirkiisa waxa aad rabto aad helayso. aayadaasna waa aayadda في سورة الليل ilaahay subxaanaه watacaala uu kaga sheekeynayo 3 tallaabo haddaad qaado waxa aad niyeysatay in markiiba aad helayso hadduu ilaahay yiraahdo, laakiin inaad gaarto waa levelkaas. 3 tallaabo 3 aayadood ayaa sheegaysa. فأما من أعطى waa 1 واتقى waa 2 وصدق بالحسنى waa 3 marka jawaabta فسنيسره لليسرى. aan ku soo celiyo فأما من أعطى qofkii sadaqa bixiya 1 واتقى cabsi ilaahay laga helo. cabsida ilaahay markuu rasuulka ka hadlayo wuxuu tilmaamay taqwada wuxuu farta ku fiiqa calayhi salaatu wasalaam laabtiisa. واتقى cabsi ilaahay laga helo, taqwo laga helo. taqwo waa dhowrsanaan. qofkii sadaqa bixiya dhowrsanaan laga helo. وصدق بالحسنى aayadaasi tafaasiiro kala duwanay leedahay, laakiin bacd culamaa waxay ku fasireen rumeeya yaqiinsada ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u niyeystay yaqiinsada inuu helayo fasanuyasiruhu lilyusra. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u fudaydinayaa tii fududeed bacdu culamaa jannaday ku fasiraan. culamo qaarkoodna wixii khayr ah uu rabay inuu helo adduunka markiiba uu helaya. sheekadan dhegayso marka iyadoo kooban. nin ayaa 5 sano wax haba yaraatee meel kasta uu galay shahaado sarena wuu haystay inuu shaqo helo. wadamada carabta ah nin sheekha ka dhagaystay wax shaqo ah uu heli waayo. maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin sheekh ah tala weydiiyey muxuu sameeyaa. waxaa lagula taliyey taladan aayadahan 3 la xusuusiyey. فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى isla socdaan. qofkii wax bixiya oo taqwo laga helo. 2 وصدق بالحسنى waa yaqiin waa yaqiin levelkii martabadii maqaamkii yaqiin gaara. وسنيسره لليسرى haddii dhabkaa tahay oo niyatu sadaqaa baxsanaysaa. niyadda u baxsanaysa waxaa waaye inaad shaqo hesho oo ilaahay shaqo u ku sugiyo, shaqo xalaal ah oo kugu filan inkamkeeda oona baraka leh. ninkii wuu baxay sadaquu baxsaday. wali sadaqada aad ku baxiso meel markaasi loo baahan yahay. wuu baxay sadaquu bixiyey. markuu bixiyey maxaa dhacday marka? mucjisaa dhacday. 3 maalmood kadib ninkii oo faraxsan oo qoslaya ayaa u yimid sheekhi. wuxuu dhahay bishaarey. wuxuu dhahay فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. way dhacday u dhahay. oo maxaa dhacay? shaqaan helay. shaqo kaliya ma helin, waxaa hel u dhahay shaqooyinka midda aan raadinayo tan ugu fiican. inkamka dakhliga aan raadinayo dakhliga ugu sareeya. meel muhiimna waa la ii magacaabay. ninkii oo faraxsan ayaa wuxuu u sheegay inuu helay aayaddii markuu ku dhaqmay wuxuu rabay. marka culimmada waxay yiraahdeen sadaqada waxaad u niyeysato ayaad heli markaad bixiso haddii 3daasi sifo lagaa helo. niyad ikhlaasa ku bixi aad u niyeysanayso waxa aad rabto. مثلا waxbaa kaa maqan waxaasaad rabtaa inaa hesho. مثلا ilmaha kaa xiran. dad ayaan ogahay ilmo inay ka xiran yihiin. sadaqaa bixinaysaa. 1 waxdeeda ilaahu sadaqadaas waxaan u bixiyey ilmahaasi iga xiran ilaahu inaad ii soo dayso, ama qofkaas iga xiran ilaahu inaad ii soo dayso, ama sharci ayaa iga maqan sharcigaas ilaahu inaad ii soo dayso, ama qof ayaa meel ku xayiran oo ninkaagi ama haddii xaastahay xaaskiisii u imaan lahayd
sida wadamada haddaan joogto qofka kale uu keensanayo qofka ayaa xayiran oo soo daahay sadaquu u baxsaday fa amaa man actaa sadaqa haddaad u bixiso wataqa adna taqwa laga helo taa waa dhowrsanaan taqwa macnaheed waxa weyn qof ilaahay ku xiran qof ahlu salaad ah qof maaragtay ahlu qur'aan ah qof dikri badan markii lagaa helo markaasi kadib yaqiinso waxaan ilaahay gacantiisa inay ku jiraan ilaahayna uu bixinayo maxaa dhacayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku waafajinayaa waddadii sahalneed aad u mari lahayd in aad ku hesho waxaad rabtay waadna heli wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu